Assalaamu calaykum daawade. Ku soo dhawow qayb kale oo ka mid ah xasuusihii nabad sugidii Soomaaliya ee NSS oo uu qoray Master Xiirane oo ka mid ahaa saraakiishii nabad sugidii Soomaaliya xilligii kacaanka. Maarso 1987 ayaa waxaa taliyahaygii isku raacnay xafiiska madaxweyne Siyaad. Sheeko iyo shaah kadib waxaa la ii sheegay inaan aadayo Jazaa'ir, warsan iyo guddoon. Markaas oo kale la isma weydiiyo maxaa ka jira iyo maxaan ka doonayaa. hawl dhamaad ah ayaa la doonayaa inaad dhamayso. waxaan habeenkii seexday aqalkii hooyaday. Aabahay wuxuu ku maqnaa dhulka barakaysan ee Sacuudiga. aroortii anigoo labisan ayaa waxa iigu yimid guriga darawal, wuxuuna toos ii geeyay xaruntii NSS. kadib waxaan israacnay taliyahaygii. mar kale ayaan u tagnay madaxweyne Siyaad. salaan diiran aniga iyo shacabka Soomaaliyeed naga gaarsii walaalkay madaxweynaha Jazaa'ir. markuu intaas madaxweynuhu yiri ayaan ogaaday inuu safarku culus yahay, fariin qaranna ay tahay. si dhaga wadani ah ayaan u dhooxay fariintii afka ahayd. waa gaf nabad sugineed inaad markaa oo kale qoraal xasuuseed samayso. taliyaha ayaa doorkiisii qaatay. hadalkii wuxuu ii sharxay sida aan ka yeeli doono warqadda aan sido haddii aan dareemo wax cabsi ah inay gasho gacan ka sokaysa madaxweynaha. Rome ayaan ka bedeshay diyaaraddii, kadibna waxaan si nabad ah ugu degay dalka Jazaa'ir. waxaa dhabaha diyaaradaha iga qaaday taliye Nuuruddin Zahruuni. wuxuu i geeyay guriga martida. xoogaa markaan nastay ayaa waxaa ii yimid mudane Zahruuni. anigoo go'shaal iyo macwis ku jooga ayaan u galay madaxweynaha. salaan kadib waxaan durba u dhiibay xaashidan siday, waxaana raaciyay fariin afka ahna inaan xambaarsanahay. gacanta ayuu iigu ishaaray inaan u kaadiyo, wuxuuna isha mariyay warqaddii aan xamar ka keenay. inta eegay Nuuruddin ayuu yiri kulan isugu yeer khaaliyada. ma aqaan wuxuu la jeeday, laakiin Nuuruddin istaag oo hawshii loo diray ayuu doonay. madaxweynaha markaan iscilaysanay ayaan si degan ugu gudbiyay fariintii madaxweyne Siyaad aan ka siday. markaas aan tagay Jazaa'ir waxaa joogay saraakiil badan oo ka yimid Ruushka. markaan kala dhimanay inaan kulan salaameed ugu tago ayay qorsheeyeen, hase yeeshee madaxweynihii ayaan ka codsaday in la joojiyo kulankaas bacdama ay yihiin saraakiil shisheeyaha dalka jooga ay dhowranayaan dhaqdhaqaaqooda, aniguna aan dhowr dal u dhashay, Soomaalinimaduse ay dhab ka tahay. Algeria waxay ahayd dawladda kaliya ee bahdii hanti wadaagga markaan kala xarig goosanay aan noo jarin xiriirka ee garatay inuu naga dhaxeeyo wax ka duwan hanti wadaagga oo ahaa islaamnimo. allow kuu naxariiso. madaxweynihii Algeria ayaa ku adkeeyay jawaabtu u soo qoray Siyaad inaan hilbo nahay. Moji siday NSS ku heshay waxaa January 1987 Qaahiro kulan la qaatay Saadaad, wafdi heer sare ah oo ka yimid Mareykan. wuxuu Saadaad ka codsaday Mareykanka inay ka hor istaagaan midow la hadalhayay oo qarsoodisi ahaa oo ay wadeen Tunisia iyo Liibiya. wuxuu Saadaad qabay hadduu dhaboobo midowgaas inay Tunisiyaanku hagi doonaan siyaasadda bacdama ay ka aqoon badan yihiin Liibiyaanka. sidoo kale waxaa khatar ay ku noqonaysay Ethiopia oo Masiixi ah iyo Maqrib, Morocco oo jaal fiican la ah Mareykan. halkaas oo ay dawladda Soomaaliya u garatay khatarta ay midowga Liibiya iyo Tunisia ku noqon karaan Ethiopia inay tahay oo kaliya taageerada Liibiya ay siiso Ethiopia oo istaagta ama loo weeciyo Soomaaliya. si fiican ayaa la iiga soo sagoontiyay Algeria. si badbaado ahna waan ku imid xamar. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qaybtan. subscribe gambalelkan furo like tana saar si aad ula socoto qaybaha kale ee xiisaha badan. mahadsanidin.